kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah Turkiga oo war lama filaan ah ka soo saaray doorashada Soomaaliya ee la soo gabagabeeyay. Haddaba muxuu madaxweyne Erdogan ka yiri guusha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidees ayuu u arkaa guuldarada Farmaajo? Mareykanka oo taageero culus u muujiyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib fariin uga timid safaaradda Mareykanka ee Muqdisho iyo fariimaha lagu taageerayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo soo taraya xog cusub oo daaha ka qaaday dagaal siyaasadeed culus oo dhex maray madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Kheyre intii ay socotay doorashadii madaxweynaha. Xasan Cali Kheyre oo taariikh ku dhigay madaxweyne Farmaajo ayaan idin soo gudbin doonaa. Wararka kale waxaa ka mid ah beesha caalamka oo ammaan kala dul dhacday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo kadib war kale oo ka soo saartay doorashadii uu ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud. Kenyana waxay bilowday diyaarinta qaadkii ugu badnaa abid si ay u keento Soomaaliya maadaama ay kalsooni badan ku qabto in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay heshiis la gali doonto maadaama meesha uu ka baxay madaxweyne Farmaajo laf dhuungasho ku noqday iyo wararkii ugu dambeeyay kulamada uu Muqdisho ka wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana subax talaada ah 17 bisha shanaad ee May sanada 2022 barnaamijkan si shargareeya oo u sii gudbiya saaxiibadeena kale idinkugu jira baraha bulshada aad iyo aad u mahadsantiin. aynu ku bilowno wararkeena. dowladda Turkiga oo saaxiib dowladda Soomaaliya ayaa ka soo saartay doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud war aad u culus. madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Soomaaliya ay u tahay laba tusaale oo waaweyn kuwaas oo kala ah kow muhiimadda ay Turkiga u leedahay horumarinta dhaqaalaha qaaradda Afrika iyo labo ilaalinta nabadda bulshada iyo xasiloonida siyaasadeed. waxaan rajaynayaa in natiijada doorashada Soomaaliya ay noqoto mid faa'iido u leh dhammaan shacabka Soomaaliyeed. dowladda Turkiga waxa ay si weyn uga qayb qaadatay inay Soomaaliya ka soo kabato markii ay burburka qarka u saarneyd sanadkii 2011 ayuu yiri madaxweyne Erdogan. madaxweynaha Turkiga oo u hambaliyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed u rajeeyay in doorashadan ay ku dareemaan xasilooni. waxaan ku faraxsanahay sida wanaagsan ee ay ugu soo dhamaatay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday Soomaaliya 15kii bishan May 2022. waxaan u rajaynayaa in doorashadu ay noqoto ama ay u noqoto walaalaheena Soomaaliyeed iyo shacabka bariga Afrika oo wada jira. waxaan u hambaliyeenayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu yiri madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isagu markaasi sheegay in Soomaaliya marka ay si wada jir ah u taageerayaan isla markaana qofkii ku soo baxa doorashada ay markaasi taageerayaan. inkastoo xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya markii uu soo bilaabanayay uu dalka madaxweyne ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud haddana madaxweyne Farmaajo ayay si weyn isku sii fahmeen madaxweynaha waddanka Turkiga Erdogan. waxaase markaa Turkigu oo hadda u arkaa in Xasan Sheekh Maxamuud si la mid ah sidii madaxweyne Farmaajo oo kale ay ula shaqeyn karaan. fariimaha loo soo dirayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwo aad u fara badan oo soo taraya. safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxa uu u tagay Xasan Sheekh Maxamuud isagoo oo taageero culus u muujiyay isla markaana la wadaagay fariinta Mareykanka. safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Mr. Larry Andrew ayaa waxa uu shalay booqasho ugu tagay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya waxa uuna gaarsiiyay dhambaal hambalyo oo uu ka siday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. safiir Larry ayaa u hambaliyay madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud isagoo u rajeeyay in xilka cusub ee loo igmaday guud ahaan Soomaaliya ugu adeego si hufan. safiirka ayaa sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud soo gaarsiiyay fariin hambalyo oo ka timid wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyadoo fariintaasi lagu adkeeyay xiriirka labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinacyada amniga iyo la dagaalanka argagixisada. dhinaca kale madaxweyne Xasan ayaa la kulmay safiirka dowladda Turkiga u fadhiyay Muqdisho Mehmet Yilmaz isagoona ugu hambaliyay guusha Xasan Sheekh. Mehmet Yilmaz ayaa sidoo kale dhambaal hambalyo oo uu ka siday dowladdiisa u gudbiyay Xasan Sheekh Maxamuud. kulamada iyo hambalyada ka imaanaya dalalka saaxiibka la ah Soomaaliya ayaa sii kordhaya iyada oo loogu hambalyeeyo madaxweynaha cusub doorashadii uu markaasi ku soo baxay. waxagaag warar markaasi ka duwan kuwaas oo markaa ku saabsan xog ayaan markaan idinla wadaagaya saaxiibayaal daawadayaal. waxaa jiray dagaal siyaasadeed
adag oo dhex maray madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare hore xasan cali kheyre intii la joogay teendhada afisyooni ay socotay doorashadii madaxweynaha. waxyaabaha laga diiwaan geliyey ee doorashadaas ayaa waxaa ka mid ah in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu diiday in uu tanaasul u sameeyo xasan cali kheyre oo ra-iisul wasaare u ahaa 3 sano iyo bar ka hor. waa 3 sano iyo bar oo ka mid ah 5tii sano ee uu xukunka hayay madaxweyne Farmaajo. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegii koobaad ee doorashada waxa uu helay 59 cod halka xasan cali kheyre uu helay codad gaaraya ilaa 47 cod. xasan cali kheyre iyo kooxdiisa ololaha ayaa markii uu dhammaaday wareegii koobaad waxa ay kulan la yeesheen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo ka codsaday in uu tanaasul u sameeyo, iyagoo u sheegay in uusan rajo badan lahayn isla markaana uu codadkiisa ku taageero xasan kheyre si uu u gaaro wareegga saddexaad. Maxamed Farmaajo oo la tashi la sameeyay Fahad Yaasiin ayaa ugu dambeyn ku gacan seeray codsiga kheyre, wuxuuna Farmaajo ku adkaystay in uu tartami doono wareegga labaad. kheyre ayaa la rumaysan yahay in uu wareegga saddexaad u soo gudbi lahaa haddii uu taageero ka heli lahaa kooxdiisii hore ee Nabad iyo Nolol, balse waxaa muuqatay in kooxdaas aysan aqbali karin inay arkaan kheyre oo dalka madaxweyne ka ah, iyagana ay dibad joog markaasi ka yihiin. go'aanka uu qaatay Farmaajo ayaa ugu dambeyn sabab u noqday in uu fursad weyn helo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka faa'iideystay tanaasul la'aanta ka dhacday natiijada wareegga koobaad. 3 murashax ee uu wajahayay Xasan Sheekh waxaa la rumaysan yahay in kheyre uu noqon karo murashax ugu loolanka adag. si kastaba xasan cali kheyre ayaa markiisa ka aarsaday Farmaajo markii ay isku soo hareen isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud, waxa uuna inta badan codadka taageerayaashiisa u wareejiyay dhanka Xasan Sheekh Maxamuud si loo reebo Farmaajo. kheyre iyo Farmaajo ayaa kala tegay waqtigii dalka loo diyaarinayay doorasho kadib markii uu kheyre ka hor yimid sida uu rabo madaxweyne Farmaajo in doorashada loo wajaho, waxaana xilligaasi la rumaysnaa in uu kheyre yahay murashax u taagan xilka madaxweyne ee Soomaaliya, waana taas sababta si aan dastuurka waafaqsanayn xilka looga qaaday. kheyre waxa uu muujiyay wacdaro isaga oo helay codad ka badan intii la filayay, wuxuuna u muuqdaa inuu leeyahay mustaqbal ifaya haddii uu isi soo dhiso markaasi 4 sano ee kale ee soo socota, maadaama halkaasi wacdaro uu ka dhigay. beesha caalamka ayaa waxa ay war kooban ee ka soo saartay mar kale doorashada madaxweynaha. waxa ay ugu horeyn u hambaliyeysay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxa ay sidoo kale ammaan u jeedisay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyada oo ugu hambaliyeysay waxqabadkiisii hore. waxa ay sidoo kale ku ammaantay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya uu si heer sare ah u qalabeeyay isla markaana uu u diyaariyay oo uu isugu aadiyay, iyada oo sidoo kale intaasi ku dartay beesha caalamka in madaxweyne Farmaajo uu ku ammaanan yahay in uu si degdeg ah u aqbalo natiijada doorashadii markaasi ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan teendhada Afisyooni 15kii bishan May aynu ku guda jirno, iyadoo doorashadaasina uu ku soo baxay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. qaybaha dambe ayaanu isla soo gaarnay. dowladda Kenya ayaa la sheegayaa inay diyaarinayso qaadkii ugu badnaa abid si ay markaasi ugu soo dhoofiso Soomaaliya. Kenya ayaa aad ugu farxday guusha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxa ayna soo dhaweysay guuldarada Farmaajo. madaxweyne Farmaajo ayaa laf dhungasho ku ahaa dowladda Kenya oo markaasi ka xayiray qaadkii ay Soomaaliya u soo iibgeyn jireen, inkastoo haddaba qaadka u yimaado balse si qarsoodi ah uu ku yimaado, waxaana Kenya ay qasaaraysay intaasi lacago markaasi balaayiin dollar ah. hadda waxay qorsheynaysaa in markaasi marka lasoo dhiso xukuumadda in ay keento qaad aad u fara badan si markaasi lacagihii ay qasaartay ay dib ugu hesho. lama oga sida Xasan Sheekh Maxamuud uu ka yeeli karo amaba uu ka yeelayo go'aamadii uu hore u qaatay madaxweyne Farmaajo oo xiriirka caalamiga uu qayb ka ahaa, balse Xasan Sheekh ayaa dhowr jeer fagaarooyin ka sheegay in uu soo celin doono xiriirka caalamka ee uu markaasi ku ciyaaray madaxweyne Farmaajo. waa sida isagu markaasi uu qabee. haddana Kenya waxa ay kalsooni badan ku qabtaa inay heshiis la geli karto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. ugu dambeyntiina kulamo aan kala joogsi lahayn ayuu magaalada Muqdisho ka wadaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uu la kulmay saraakiisha ciidamada sida taliyaha booliiska, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. waxa sidoo kale la kulmay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. waxa uu la kulmay xubno wasiiro ah. sidoo kale waxa uu kula la qaatay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo ay arrimo badan ka wada hadleen. waxa ugu dambeysay oo uu la kulmayay madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaarkood sida madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor
waxa uu wadaa la tashiyo iyo markaasi in uu la hadlo dadkii markaasi ka caawiyey guushiisa. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war lamid ah intaanu dib ugu kulmi doono xarid kaga teganaa sidaas iyo nabadgelyo.